baarlamaanka tobanaad ee federaalka Soomaaliya ayay maanta uga eg tahay muddo xileedkiisii waxaana dhammaaday shaqadii dastuuriga ahayd ee qaranka u igmaday inkastoo sharci gaar ah u sameysteen si ay u sii joogaan haddana dastuurka ku meel gaarka ololaha doorashada ee socda iyo dimuqraadiyadda dalka ayaa diidaya sii joogitaankooda waxaana laga digayaa in sharciyo cusub curiyaan oo ay buubsiyaan muddada kala guurka iyo doorashada sida ku cad qodobka 6aad ee dastuurka ku meel gaarka muddo-xileedka baarlamaanka kama badna 4 sano waxayna ka bilaabataa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo qodobka 6aad muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo xildhibaan kasta oo baarlamaanka federaalka kamid ah dib ayaa loo dooran karaa baarlamaanka tobanaad ayaa dhankooda sababo u gaar ah si ay u sii joogaan waxay u ansixiyeen sharciyo muran ku jira iyaga oo sharciyeystay muddo-xileedkooda kadib waxa ay labadiisa aqal soo saareen September 26keeda 2020 ansixinta heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashada baarlamaanka 2020-2021 iyagoo ku daray wax ka bedelka lagu sameeyay sharci lamarkiisu yahay 20 soona baxay 27 bishii 6 2016 baarlamaanka tobanaad ayaa dhankooda sababa u gaar ah si ay u sii joogaan waxa ay ansixiyeen sharciyo muran ku jira iyaga oo sharciyeystay muddo-xileedkooda kadib waxa ay labadiisa aqal soo saareen September 26keeda 2020 ansixinta heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashada baarlamaanka 2020-2021 iyagoo ku daray wax ka bedelka lagu sameeyay sharci lamarkiisu yahay 20 soona baxay 27 bishii 6 2016 qodobka 3aad ee xilhaynta hay'adaha dastuuriga ee dawladda ayaa u qornaa sida tan xilhaynta hay'adaha dastuuriga si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay'adaha dastuuriga ee dawladda federaalka baarlamaanka tobanaad oo awoodihiisa dastuuriga u dhameystiranta ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaarinayo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyay sharciga lambarkiisu yahay 20 soona baxay 27 bishii 6 2016 hay'adaha kale ee dastuuriga ah ee dawladda federaalka ayaa xilalkooda sii haynaya ilaa iyo inta laga dhisayo hay'ad walba hay'adii bedeli lahayd qodobka 4aad dhaqangalka sharcigan wuxuu dhaqangal noqonayaa kadib markuu baarlamaanka federaalka ansixiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xeer madaxweyne ku meel mariyo laguna soo saaro faafinta rasmiga ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 84aad iyo qodobka 85aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya talaabadan dambe ee baarlamaanka federaalka ku ansixistay inay sii joogaan muddo-xileedkooda kadib ayaa waxaa loo arkay mid dastuurka baalmarsan sharciyo lagu boobsiinayo oo ah waqti kordhin dadban iyo mid ay doonayaan inay sii joogaan waxaana ka hor yimid qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba maanta kadib muxuu ahaan doonaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka waxa uu ahaanayaa si haye xilal mana lahaan doono awoodo dastuuri ah sida uu sheegayo qodobka 6aad ee dastuurka ku meel gaarka ma xorin karaan mana ansixin karaan wax sharci ah waxaana laga soo qaadaya meel la kala diray ama olole doorasho ku jira sida ku cad baarlamaanada caalamka xildhibaanada salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo goobjoog news ugu waramay muddo-xileedka baarlamaanka federaalka ee dhamaanaya waxa uu qabaa in hadda aanay ahayn in wax shaqo ah la qabto isagoo qoraal kale uu soo dhigay barihiisa bulshada ku eedeeyay farmaajo oo 40 maalmood u harsan tahay inuu go'aansaday inuu kaligii isku caano shubo ama dalka geliyo qalalaase siyaasi ah iyo mid amni ah Dr. Xasan Shaqaale oo falanqeeya xagga siyaasadda oo isla arintan kala hadlay goobjoog news ayaa yiri 27 September 2020 waxa dhamaanaya muddo-xileedka golayaasha sharci dejinta tobanaad ee Soomaaliya sidaas daraadeed hay'adda sharci dejintu xaq dastuuri ah uma lahan inay soo saarto go'aano ama qawaaniin masiiri ah Dr. Xasan Shaqaale oo si hadlay ayaa yiri inta laga dooranayo hay'adda sharci dejinta 11aad ee golaha hadda jira wixii ka dambeeya 27 September 2020 waxay noqonayaan golaha u dhigma caretaker assembly awood uma lahan inay qaataan go'aan ama go'aano masiiri ah xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo la hadlay goobjoog diidayna in magacooda la xuso ayaa sheegay in gudiyada golaha uu iminka mid walba gacanta ku hayo sharciyo la doonayo in laga gaarsiiyo ansixintooda inta aanu imaan baarlamaanka 11aad Hanad Ali Gule